waa Dr. Wiila Cabdicasiis waxay ku guda jirtaa howl maalmeedkeeda waxayna halkan ku qaabishaa bukaano badan oo la ildaran cudurrada ku dhaca afka iyo ilkaha si gaar ah caruurta waxay ka mid yihiin bukaanada goobtan caafimaad la keeno maalin kasta mushkiladda ugu badan waa suuska ilkaha iyo gowsaha gala Firdowsa Axmed waxay xaruntan keentay gabadheeda waxa ahay hooyada gabadhan yar bukaanka aan imado waxa ka caawinaynay ilkaha oo suuska saameeyay dhowr xarmo dental clinic waa tagnay macal asad recovery fiican ma ka helin oo saaribnay wax meena noogu noqon Firdowso ka waalid ahaan waxay u tiirinaysaa in suusku keeno waxyaabaha macmacaanka waxa isleenahay anaga ahaan waalidka marka loo fiiriyo macmacaanka inuu sababay ilmaha inta guriga kula joogan daqiiqada kooban waaye saacada kooban inta ugu badan waxay dhigtaan dugsi iskuul waxa laga yaabaa in inta wadada marayaan dugsi iskuulka ay ku xadaan macmacaanka ee jaanis dhinacaas oo arkaan in ugu faa'iideystaan marka inta ugu badan causative asaleenahay macmacaanka waa dhowr ilkood ay ugu badan yihiin wali goosaha dambe oo ka saameeyay haddii la dhaw xitaa dhinaca nadaafada waa ku dadaali kartiin hadda ku dadaalan xitaa barnaamijkii wax kale ku sameynayaan oo macmacaankii sida jaanis ku helayaan fasadeeno hayeeshee dhaqaatiirta ku gaarowday daryeelka ilkaha waxay hayaan dhowr sababood sida ay tilmaamayso Dr. Wiila Cabdicasiis way badan yihiin waxyaalaha saameeyo labarkow waxa ah masaasada qayb weyn ka masaasada marka qaab nooc u saameyn kartaa waxay u saameyn kartaa haweenkii oo kale waxa ka mamnuuc ah in ilmaha la siiyo caanaha haddii dhacdo in la siine isla markaa in maamada ay soo diyaarsato biyo caadi oo cad si caanihii meesha ku hareen ay ugu soo nadiifiso lambar 2 waxa kamid ah haddii ay jiraan poor oral hygiene ama nadaafadii qofka ku liidato ilmaha way yar yihiin wax mas'uuliyad ayaga ma saarno laakiin waalidiinta ama mas'uuliyadaas inay qaataan ee tahay tan saddexaad in loo saxo cunada ilmaha ay qaadanayaan diet-kooda aad looga warhaayo waxyaalaha macaanka oo kaleeto laga controlo number 4 waxa kamid ah qofkii candhuuftiisa ay yaraato candhuufta qofta yaraato idina qayb ay ka tahay oo lagu arki karaa suuska uu keeni karaa laano yani suus kaliya ma ahan wuxuu keeni karaa wili xataa oo lagu arki karaa afshiir for example xiliyada ramadaanka oo kale qofka markuu sooman yahay wax macunay sax already waa sooman yahay marka afkaaga isku heesid iyo marka afkaaga uu furan yahay isku mid ma ahan candhuufta yaraata marka maxaa meesha ka dhalanayso in suuski oo qofka uu ku soo degdego yani uu nugul yahay ma fahamtay marka ay xiliyada oo dhacayaan hormonal change markuu qofka xilliga qaangaarka oo kale ayadana qayb ay ka tahay sokortii ku badatay ilmaha shukulaatada ay isticmaalaan zaide nacnaca oo kaleeto Dr. Wiila ayaa qabta in dayacaada ka timaada labada waalid ay sabab u noqon karto in caruurtu ay ilkahooda suusku galo inta ugu badan xarunteeda waxa ugu soo booqdaba ilmo waaye ilmaha soo la socdaan waalidiintooda waxayna ka caawinayaan suuska marka jagab u sameeyeen inta badan waxa arkaa ilkiyo wada yani suus leh oo dulduleelo leh isla markaana marka su'aal weydii waalidiintii dhamaantood ay ka wada siman yihiin oo hal jawaab ay bixinayaan taasoo ma cadeysto ilmahayga ama cadigiisa ma saxsano ama si fiican ma cadeysto ama tan labaad oo يعني wax oo wuxuu isticmaalaa inta badan macmacaanka shukulaatada iyo nacnac iyo waxyaalaas midaasna cudur daar ma naqanayso responsibility-ga ugu weyn wuxuu saaran yahay waalidiinta labada dhinac Dr. Wiilo waxay farin u diraysaa waalidiinta si ay caruurtooda uga nabad galaan suuska in loo sameeyo diet balance loo saxo cunada ilmaha ay qaadanayaan laga controlo brushka lagu tawbaro yani intuu yar yahay loo cadeeyo markuu sii weynaado asaga hadhow xiiseenaayo markii waalidiinta iyaga cadeysanayaan waxa kula talinaa in ilmahoodii ayagana yani cadiga soo qaata kaaliya cadeysta oo kale dhahaan oo markaas ay u noqdaan dhiirigelin habraaca talooyinka bahda caafimaadka ayaa ah mid kaalin weyn ka qaadata badqabka caafimaad ee bulshada